بالروح تشرق بالسنا. نبينا صلوات ربي والسلام عليه وعليه لح الريموت نفتينا دمانا قادا أما إيقا دمانا قادا شنادا أننا إذين دمانا قادية يعني لحدا الريموت روحا حقيقية شنادو وقرنتي دمانا وي إنو شنادا قليل وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم لحدا الريموت مدى كوبات markaad sheekaynaysaan run sheega qodobka labaadna haddaad ballan gashaan ballanta ilaaliya qodobka saddexaadna ammaanada guta qodobka afraadna nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam xubinkiinna taranka ilaaliya qodobka shanaadna nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam indhaha xaaraanta ka laaba qodobka lixaadna nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam gacmihiinna celiya oo wixii ilaahay xarimay ka celiya lixdaa qodob ruuxii xaqiijiya nebi maxamed wuxuu leeyahay jannada anaa u damaano qaadaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaqiijintoodii baa marka waxay tahay marbatulfaras meeshana muhima waxa la ballan qaadayo waa waxaan wada raadinaynay waa jannada rabbi tabaaraka wa tacaala waa wixii cid walba ay ku taamaysay cid walbana ay higsanayso inay gaadho wey ilaahay jannadiisa iyo ridihiisa iyo naxariistiisa tani marka asbaabta lagu helo qaar ka midow qodobka koobaad oo nabigu leeyahay sal alla alay wasalam markaad hadlaysaan run sheega xadiid kale oo cabdillaahi ibn mascuud laga warinayo bukhaari iyo muslim ay soo saareen ayaa nabigu wuxuu leeyahay sal alla alay wasalam runtu ruuxa wanaagay ku hanuunisaa mar haddaad runlow tahay runtu waxay kuu jiidaysaa wanaag iyo biri iyo wax wanaagsan waxa wanaagsanna wuxuu kuu jiidayaa allah jannadiisa ruuxu inuu run sheegayo runtana ku dadaalayo ka zuuli maayo ilaa ilaahay agtiisa looga qoro kii runta badnaa sidiiq saas daraaddeed runtu waa waxyaalaha jannada waajibiyey ka mid tahay qodobka labaad ee nebigu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weeye ballan haddaad qaaddo ballanta oofi heshiis haddaad gasho heshiiska ilaali yaboo haddaad samayso dadka yaboo ha u fuli ha ka bixin maxaa yeelay diinteenna islaamka waxyaalaha ay kaga gedisan tahay mabaadi' fara badan oo kale waxaa ka mid ah cahdigu iyo ballanta la gelayaay iyo ballanta aad qaadaysaay waa miihaaq waa wax ilaahay agtiisa aad uga culus waa inaad marka ilaaliso ballantaa ama la gal muslim la gal ama gaal la gal waa inaad ballanta ilaaliso rabbigeen tabaaraka wa tacaala mu'miniintuu sidaa ku sifeeyey jannada iska leh aayado fara badan oo qur-aanka ka mid والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أمانتودنا وإلاليان بلنت أي قلان نوا دوران وإلاليان بربي تبارك وتعالى قلب كسد هذا النبي قال صلوات ربي وسلام عليه وحوي أمانة إلالي أمانة إلالية أمانة وحا أقوى انتي الله كوى آمين سدي حق الربي كوى آميني با كوكا أمانة خلقك أيا قيبك ama xoolo lagugu aaminay ha noqdeena lagu dhiibtay ama sir lagugu aaminay ha noqoto ama mas'uuliyad lagugu aaminay xil lagugu aaminay ha noqoto ama cilmi lagugu aaminay ha noqoto amaanada lagu dhiibtay ilaali oo amaanada ha khayaamin
rabbigeenna tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ina allaha ya'murukum an tu'addu al-amaanaati ila ahliha. allah wuxuu idin amrayaa ammaanooyinka inaad u gudataan ciddii iska lahayd. xoolaha ciddii iska lahayd gaadhsii, xilka ciddii iska lahayd u ilaali, sirta ciddii iska lahayd u xifdi, ammaanada ciddii iska lahayd gaadhsii. cidda ku khayaantayna ha khayaamin, lianna diintani waa diinu lamaana ee diinu lkhayaama maaha. allah tabaaraka wa tacaala ammaanadaasi culayskaa leh waa ammaanada samaawaadka iyo dhulalka iyo makhluuqaadka waaweyni ka cudur daarteen, innaguna aan xambaarsannay wey, oon tunka u ridannay. xisaabta badanna meeshay ka imaan doontaa aakhara halkaas wey. qodobka afraad ee nebigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa weye jannaad ku helaysaan xubinkiinna taranka ilaaliya. xubinkiinna taranka ilaaliya oo zinada ka ilaaliya oo faaxishada ka ilaaliya oo xadgudubka ka ilaaliya oo dhowrsoonnida iyo nikaaxa xalaasha ah shahwadiinna ku guto ku ilaaliya. qur-aanka kariimka meelo badan baa rabbi tabaaraka wa tacaala isagana macnaha ku tilmaamay oo inugu amray rabbi tabaaraka wa tacaala inaan xubinkaa ilaalinno. sifaadka ahluliimaanka jannada iskalena rabbi waa ku sheegay tabaaraka wa tacaala. rabbi wuxuu yidhi dadka sifada jannada dhaxlaya marka la tilmaamayay furuujtooda iyo xubnahooda tarankay ilaaliyaan ilaa xaasaskooda iyo addoommadooda mooye, ama addoommadooda mooye. yacni addoommadu wakhtigaasay jireen, hadda ma jiraan. meelaha qaarkood laga yaaba in laga meel ilaahay kuu xalaaleeyo ama xaas ama addoon ah cid aan ahayn ama meel aan ahayn haddaad shahwadaada ku gudato, faman ibtaqaa waraa'a dalika faulaa'ika hum ulcaaduun. xadgudub baad samaysa, wabittaali dhaxalkii jannada inaad ka qadaa dhici karta. lan allah tabaaraka wa tacala markuu sidaa u sifeeyey wuxuu ku tilmaamay aladiina yariuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun. aayadda kalena marka la sifeeyo tilmaamahooda la sheegay ulaa'ika fii jannaatin mukramuun baa layidhi. sifaadkan dadka iska leh waa dadka dhaxalka jannada iska leh oo ilaahay jannadiisa tabaaraka wa tacala dhaxlaya. sidaas daraaddeed inaad xubinkaaga taranka ilaaliso. nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh